kulankan ay mas'uuliyiinta ururka Alpha Trust kula qaateen xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa guddiga taakuleynta abaaraha Soomaaliland ayaa waxa shir gudoominayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami waxaana kulankan oo ay albaabadu xidhnaayeen kadib markii ay soo ilaadeen warbaahinta wadajir loo hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami agaasimaha guud ee xafiiska samafalka ee madaxtooyada Aamina Maxamuud Diiriye iyo xubnaha guddiga taakuleynta abaaraha Soomaaliland naxariistii odayaasha laga waayay in dhalinyarada laga helaa waa si wanaag idinkaana jiilka adduunka oo dhan dowlad walba raggeeda ay leedahay asri walbana rag baa talinaya badan oo dhibaatooyin badan baa la soo maray marka waxa ka fiican dadka freshka ah kaladana wax dhow way gaari doonaan laakiin intana la sorto la furo inaan la kala xidhnaanin in sidaa gurmadku xaggana ka yimaado markii dhibaato ilaaba inaguma keenee markay timaadona la isu gurmadaa dadkii waxay noo soo noo soo gurmaday jajni in la yidhaah markaa nin Soomaaliya وحمر جوجا وأول بلا وداعا ودويا إستجاب تني غير كذبة كدو مركز هذه على يعني ودسول وين الناس فاسلك خبك وناك ساسو كلا أو نعرف كتير وين ويرات بريء عندهم وين إنكورج قريو اللي دي أرنتي دسول وين نوع اللي يدلق بنكرنا وأنا جينا اللي يدلق دين كده رباق نعرف إحنا كسوة جدينا inay dadku ku daydaan inamada dhalinyarada ah ee aan hay'ada gaala ah ku xidhnayn aan fan aanay hay'adu siinin laakiin iyagu dhexdooda isku tashaday in ay dadkoodii wax gaarsiiyaan ilaahay idinkii $100 noqoto qofku wixii uu ku darsado tabarucaadka ayuu ku leeyahay miisaanka xasanaadka ugu darsamaya waa talaabo weyn jidka aad noo soo marteen waqtiga aad soo lumiseen shaqooyinkiina aad ka timaadeen aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba waxaan ku soo wareejinay walaalahay abaal weyn baad gasheen dad jilicsan oo aad daawateen oo aad aragteen ayaad ka qiirooteen idin damqay aad uga soo safarteen dhul fog oo masaafada aad ka timaadeen ay aad u tahay mid dheer aad u timaadeen bas arrin islaamnimo arrin bani aadminimo arrin naxariiseed intaasiba waxa ay dareen cajiiba iyo muuqaal runtii la yaabo sawir cajiib ay muujinaysaa saastarteed waxaan ilaahay wax ku soo biirteen waad ka mid noqoteen dadkii runtii dadka u qiirooday ee wax taray ee faraha badnaa iyo kuwa insha Allah soo socda ayaad liiska kaga jirtaan annaguna waan idin mahadnaqaynaa runtii farxad weyn baan tahay gurmadkaas dareenka iyo naxariista xambaarsan ee aad soo gashay aad baan u qadarinayna waana sidii diinteenu ina furtay dadnimaduna ina farayso in dhibka la wadaago shucuurka iyo dareenka la wadaago aad baan soo dhaweynaynaa dareenka ayaa ka horeeya waxbixinta damqashada iyo shucuurka ka horeeya qadarinta iyo xasuusta ka horeysa waxbixinta iyo markaa yani gacantuna waa dhamaystir weeye aad baan intaba u qadarinaynaa ugu dambeyntii gudoomiyaha ururka Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye oo halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay ayaa ka warbixiyay ujeedka safarkooda isagoo sheegay inuu qayb ka yahay ujeedka safarkoodani taakulada iyo gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen sarcadani aan ku leenahay mudane aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna dowladda Soomaaliland sida ay noo soo dhaweysay marnaba ma iloobayno anaga waxaan ka nimid wadankii London aniga waxaan ahay gudoomiyaha Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye say u sheegtay Aamina waxaan u nimid islaan barnaamijkeena wuxuu ku saleysnaay 11 caruur haysto 3 ay ka yihiin naafo in aan garab istaagno aqal u dhisno maadaama abaariye dhaceen barnaamijka sidii nooga bedelmay mudan wasiir marka waxaan rabnaa in aan dhulkii hooyo ka howlgalno dadkii dhibaatada ku dhacday xanuunkii Faysal aan ka aragnay yaan u soo gurmanay in aan dadkii wax la qabano dadkii xoolo la'aanta ku dhacdayna xoolo u geyno wixii beer loo fali karo maadaama anagoo guddiga abaaraha la socono yaan rabnaa wixii awoodeyna inaan gacan ka geysano
dadkeena walaalena wax la gaarsiino maadaama guddigii maanta inay hor yimaadeen si wanaagsan ayaan wax meel wada dhignay waa ka mahad celinayna sida wanaagsan markii in ayagana jiheeyaan anagana gacanteena ay gaarto wixii awoodeena Alfa Trust gudoomiyaha ku hadlay mudan wasiir inaan hawshaas qaban saraakiisha sarsare ee ka socda ururka Alfa Trust ayaa qayb ka noqonaya gurmad iyo taakuleen loo fidinayo deegaanada abaaruhu ay saameynta xoogan ku yeesheen iyagoona gaari doona qayb kamid ah deegaanadii ay abaaruhu saameeyeen Najiib Abdiwali Abdixiis telefishinka caalamiga Universal magaalada Hargeysa.